farxiya waxay ku suntaneed marwo aad u degan aad u akhlaaq badan afkeeda iyo aadinkeeda laga nabadgalay reerkeeda raali gelisay saygeeda raali gelisay aniga aan raali ka ahaa waxay igu reebtay xasuus iyo nolol weligay allahi aanan iloobi doonin laakiin waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ilaahay ha kugu irsaaqo hadiiba say raali isagoo ka ah xaaskiisa haday dhimato hadiiba ay jannada ku galayso naar arki ma doontid waana ku duceyn doonaa 10 sanadood muddo ku dhow baan wada nooleen waxayna ii ahayd nolosha inta aan noolaa maalmihii marka guurka laga hadlo iyo in mataqaana aabba la ahaado raxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa idin salaamay dhammaan ummadda muslimiinta ah ee halkan isugu imaaday ragga iyo dumarkaba leh waa u mahad celinayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasto ay adduunka ka joogto sida ay u yihiin qoysba qoys ila qaybsadeen tacsida sawjadeedii raxmadda badneed ee Farxiya Cabdiraxiin Maxamed Kadiye dhammaantood waxaa leeyahay waa mahadsantihiin in afka laga yiraahdo waa mahadsantihiin wax macno badan oo soo kordhinaysa malaha laakiin qalbigaada kaga mahad celinaa dhammaan madaxdii qaranka dhammaan saaxiibadii qaaska ahaa dhammaan walaalihii Soomaaliyeed ee itusiyay inaan wiilkoodii ahaa dhammaan saxaafadda oo har iyo habeen u taagneed inay ma aragtaa si wanaagsan u soo tabiso tacsida walaashood iyo dumaashidood dhammaan familkayga oo ugu horeeyo aabahay Maxamuud Sheekh Muuse Maxamed Cadde wax kale oo aan dhaho iyo hadal dheer oo aan maanta ma aragtaa halkan ka iraado ma jiro waxaan rabaa inaan si qaas ugu mahad celiyo walaalkay wasiir Maxamed Barre oo run ahaantii isagana garabkayga u istaagay in aanu wasiir ahayn in aanu ma aragtaa xukuumad iyo dawlad uu sameeyay walaalkay ila dhashay oo kale uu garabkayga u istaagay iyo walaashay xildhibaanad Ifraax idinkana aad u mahadsantiin jazakallahu khayran farxiya waxay ku suntaneed marwo aad u degan aad u akhlaaq badan afkeeda iyo aadinkeeda laga nabadgalay reerkeeda raali gelisay saygeeda raali gelisay aniga aan raali ka ahaa 10 sanadood muddo ku dhow baan wada nooleen waxayna ii ahayd nolosha inta aan noolaa maalmihii marka guurka laga hadlo iyo in mataqaana aabba la ahaado waxay igu reebtay xasuus iyo nolol weligay allahi aanan iloobi doonin laakiin waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ilaahay ha kugu irsaaqo hadiiba say raali isagoo ka ah xaaskiisa haday dhimato hadiiba ay jannada ku galayso naar arki ma doontid waana ku duceyn doonaa waana ma aragtaa weligeena qalbiyadeena baaqi ku sii ahaan doontaa waxaan ka codsanaa dhammaan Soomaali weyn inkastoo aysan ahayn qof dhib badan oo laga sheegtay inkastoo ahayd gabar la wada amaanay oo dadka oo dhan afkeeda iyo adinkeedaba ka nabad ahaadeen haddana waxaa idin ka codsanaa dhammaantiin qofkii Farxiya wax u qabo inuu ilaahay dartiisu cafiyo maadaama ay naga hooseyso maanta oo duco oo kaliya nooga baahan tahay haddii maalin ibn aadan ay isgaareen ama maalin aniga ka hor iyo kadibba ma aragtaa ay jirto waxaa idin ka codsanaa dhammaantiin inaad ii cafisaan iguna duceysaan waa ku mahadsantiin dhammaantiin sidaad ugu wada duceyseen maama Ifraax oo halkaan imaaday waxaan leeyahay ma aqoonin aniga dadkii tacsida ku bartaa kamid ahaa oo ma aragtaa inay Farxiya sadaqadaas la baxday waxyaabaha ay ku wanaagsaneed waxa kamid ah xitaa sadaqooyinkeeda gaar aniga waxba kama warhayn marka maama Ifraaxna insha Allah taala waxba ka mahalaabi doonaan Farxiya kadib ka horna ayada ku ilaalin jirtay